لتشوفهم إلى وليك يسوع. حلبان سليمان فرح عيسى واعظي حلبان حسين ياسين حاج ديري واعظي حلبان محمد اسماعيل محمد سيبت حلبان محمد فرح مره واعظي حلبان موسى سعيد حسن واعظي حكلو يا وكيلك مرشح جنرال ناصر عبد الله عثمان حبيب فارح جنرال أسد العثمان سعيد عبد الله الدين سعيد عبد الله الدين سعيد عبد الله الدين فارح علي الشرع نتيجتي wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota kow General Asad Ismaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod laba Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu helay 35 cod 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano oo soo socota 2019 ilaa 2023 ama 23 mudane Saciid Cabdullaahi Deni صاحبتي tartan ka wada jirnay dhammaan mutasharraf ka soo timid culimada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا أدوم هاد علنا يا دمان شعب كبنتلان يوم بدي هجاي دورشة دمان هاد كدعدي أو موجسي سي أي وجرته البحنيمو الجنان كنا دعدي سنة بكليا. وحنا أدوم هاد نقيا لحوينه عبد الولي محمد علي كاس وحجين كيسي هراء وضنا عبد الحكيم يضمان مضاحظة دولة بنتلان عيدانو يريب وحنا أدو فرح سنة هاي النتيجة دي هلك صواب حضي وحايب لابتي وجه عصب وضدك الرئيب بنتلان عن الجينة يوهنا عن مسؤولية دي سارين عن كصوب بحدونه وحنكرع سنة يا دمان شعبك انت هلك الجوكتين انت مغنبة inay gacmaha isqabsadaan inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliya uga fakaraan in wajh cusub oo walaalnimo oo bilowdo doorashadii maanta halkaas ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladii aan ku jirnay doorashada way dhamaatay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa General Asad oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyay assalaamu calaykum Puntland isku duubnaada weligiin cadowga Puntland waxaan leenahay Puntland waa isku duuban tahay cidna wax kama qaadi karto insha Allah way guuleysanaysaa aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay General Asad igaad haddii aynu nahay waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka u sheegaynaa sidii lagu ballamay doorashadii Puntland inay ku dhacday si nadiif ah cadaalad ah geed socodkaasoo ka goobnaa soo xulidda xildhibaanada doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo doorashadii maanta ka dhacday aniga iyo wafdiga igaad ila socdo annagoo ku hadlayna magaca igaad waxaan ku dhiirigelinaynaa maamulka cusub oo la doortay
la shaqaynta dowladda dhexe iyo xoojinta nidaamka federaalka